gaar ahaan degmada Jalalaqsi geeskiisa koonfur meel u jirta 25 kiiloomitir oo la yiraahdo Qoryaale waa garta niyow roob baa nagu yimid waqti adiga 12 saac iyo 20 daqiiqo roobkaas waa u da'ay muddo adiga 20 daqiiqo u da'ay roobkii markuu naga qayooday oo roobkii markuu qayooday laakiin dhulku biyeysan yahay ayaa dadkii dhalinyarta banaanka joogay garoon oo lahaa jiray dhalinyartu ku ooshay galabtii amba ay baroon iyo waxaas ay ku cayaaraan dadkii banaanka jooga oo dadkii dukaamada iyo waxa jooga ana aynu didaa beledka soo dhaxmara war magaala guureysa ayaa maqalna markaa waa gartay umadii banaankii u soo baxnay wixii indhaha bad ku niri waa dumay tuulada waxay ka haastaan dhinaca oo raacu dhaca oo galbeedka ah ay wuxuu naga haastaan waa gartay wuxuu dhul baaxad weyn ay haastaan marka waxa ku arkaysaa muga dhinaca ay ka guuraan u socdaan koonfurta u socdaan waqooyigana waa ka socdaan waa gartay wuxuu arkaya dhulka inta ka dhacay waa dhisayiin waa magaalo dhamo guurayso dabaqyalaho maraayadalaho adiga masaajidalaho geedalaho baararlaho siimalo wax walba ay leeyihiin adiga dadkii dhacow yiri mootooyin hataa la qaatay wixii dhow lagu yiri dad wuxuu yiri waxaanaba soo bilaqaysanayna aadayna wax wali la arkaba ma aha dadna salaadii iyo waxba ugu markay waaba la yaabiyo salaadii oo aadaba waxa iga warantaa magaalo guureysa ma dhulka ayay ku socotay ma koro meel sare ku socotay ma meel dhaxa say u aragteen adiga mesela hadda roob markuu daa ma madoobo si wanaagsan waxaanu saymo roob oo socda amala u qabtaa waa guri cirkana ka dhisan dhulkana ka dhisan oo socda dhinaca koonfurta meel kormiyo ku socda marka diyaarad oo kale ma cirku ku socdaa mise mijawi hoose sidee u socda waa socdaan waxaas saadaal cirka iyo dhulka inta ka dhaxaysa ay ku socdaan dhinaca waqooyiga ay ka socdaan dhinaca koonfurtana badaaba ka hayso biyaha ku ka furunba imise qof baa ku aragteen ma dad yar mise dad badan ku aragnay macallimiintii dugsiga iyo waxaas hadda wax walba macallimiinta iyo kutaabta geeday fuulaan waa la fiirina ummadii xoolihii oo raacda waxay leedahay guryi reeber guryaa laga kor dhisay adiga dad badanaba xalay guri ciddaa soo weydiiyeen ta dhiitagaa hore u habaaba waxa weli la arkaan ba la maqlamaa ma waxaa arkaysaan dhismo oo keliya mise dad bini aadan xoolo waxbaad arkaysaan maya wax bini aadana ama nafleya ma arag laakiin guryahan oo daaqad u furan yihiin oo marna qaar riinji cusub u fuulo qaar maraayada yihiin qaar dahab yihiin masaajidka ugu dambeeya dhinaca waqooyiga soo xigaa daba socda marka xagee ku qiyaasteen ma dhul magaalada gudaheeda ama hiiraan gudaheeda ayaa lagu qiyaasaa dhismahaas iyo deegaankaas guurayaa tilmaamaysaa mise meel kale oo idinkaga yimaas leedahay oo idin soo dulmaray maya dad banaanka hoose jiray oo degmada Jalalaqsi inta naga jiray xagaayna u soo fiirsheen ayuu ka hortana soo wacay guryaha dhisan oo dhagax oo bari ka muuqda ayna niri wixii hadii la fiiriyo annaka dhinaca oraxsinkay naga hayo tuulada Qoryaale dhinaca galbeedka ay ka haasteen niyow maqribkuna waa soo dhawaay waxaas marka waxa maqaadir Ilaahay wateedo Ilaahay camiray dhinaca koonfurayna u dhamaadeen wixii dhinaca waqooyigeena kulay saadaashaas nooga timid waxaas muga kulay niga waxaan weli aragnay amba maartay dadka islaamka la tusama laakiin marka leedahay dhinaca waqooyiga u dhamaadeen degmooyin ma tilmaami kartaa jihada dhinacay jirta marka joogto Jalalaqsi degmooyinkii ku wajahanta hadda degmada Jalalaqsi waxay ka jirtaa dhinaca orax ka soo baxa anagu ugu aadana dhinaca orax ka soo baxa koonfurta baraandiriye hiiraan isaarkeeda anagu hadda jooga way marka waxaad ii sheegtaa wax kale oo baaritaan ma sameeyeen oo dadka ma waawacdeen dadaal kale oo deegaanada ka fog in ayaguna ay arkeen dhibkan ama mashaqadan ama calaamadahan aad idinku aragteen iyo meeshii ugu dambeysay ee inta aad wacday ee ku sheegeen lagu arkay maya anaka aniga awdaad oo kulay tuulada joogaan nahay arintaas waxaan ka geli karnaa quraanka rabbiga ay noqdeen quraankana waa ilaa xalay ilaa hadda weli waa lala fadhiyaa
nayaw dadka kolley hiiraanna waa saaka iyo soo gaarsiinay wadamada kale dad naga soo waca waa jireen laakiin waxaaniya wax aan ku tilmaanta haddii aanaba jirin wax oo kolley mucjiso oo ilaahay wata yihiin meeshaasaaba maaragtay allihii weynaa untaaba ka ag dhawaan iyo qur-aanka rabbiga tuulada aad joogtid meel aan ahayn ma laga arkay tuulo kale ma laga arkay magaalada gudaheeda reer hiiraan yaa kaloo arkay reer hiiraan maal lagu aadan oo la yidhaah oomaad ma ahayn oo qatar oomahad niman jooga ayakuna jimaa goobtaa jooga dhinaca xaggayna usoo fiirinayo oo soo bariga annakuna dhinaca galbeedkaa u fiirinay marka waa isla jalalaqsi gudaheeda soo mahan aaga ay tilmaamayso waa jallaqsi gudaheeda jallaqsi dhinaceeda koonfuro waayo oo dhul baaxad weyn waayo oo dhulkaas jalalaqsi degmo aan ahayn ma lagu arkay arrintan maya laguma arag laakiin annaka dhulka joogna waa kumaan kun oo dadaha aragtay oo maaragtay dadkii xaafadihii jooga guryaha jooga haatee guryahoodii xalay ay maaragtay ay ka carareen haatee qalqal kaliya ugu carareen waa garta marka sidee igu sawiri kartaa wixii aad aragta adigu tilmaamta siin karta guryahan horta iskifaallo caadi oo dhisan camalaa u qabtaa dabaqyahu waxa waa nooc walbay leeyihin waa garta dhinacay maaragtay u dhammaanayaan biyo uga furan oo bad camalaa ka haysa waa gartay biyahaas waxa waa shoocac camal waa badaha waa taqaanaa shoocaca biyahaas ku furan guryahana gurya geeda ku dhex yaalaan oo camba ku dhex yaalaan oo haama ku dhex yaalaan oo adiga matooro ku dhex yaalaan oo nooc walbaa kuu soo baxaa mugga in yar joogtaba nooc kala kuu soo baxaa indhahana kuma hay kartiyo mugga yar fiirida indhaha xoogaa maraayada kaa taabanaysa marka intaa oo aad tilmaamahaas aad sheegaysid oo dhan aad arkaysay oo leerar leh oo matoora leh oo guryaha noocyadooda aad arkayseen waa taagnaayeen oo waxa waa daawanayseen waa daawanayne dad waaba u dudiya waxaanaba soo taabsanaynaa ay yireen maqaadir ilaahay lama taabsan karee wixii mugay u dhawaadana wixii miraqayba yireen ummadii mugaas meeshaas nin walba indhaha madoobaad qof walba ha yarataa si weynaatay indhaha madoobaad si meeshadii fadhiyo marka ay miraq ay leeyihiin ma hawadii ku dhammaanayaan oo cirkay sare u galayaan mise magaaladii ka fogaanayaan oo dhul kale oo idinka fogo masaafo ay aadayaan maya dhinaca dhul kaleo naga fogay u socdaan waxaas wax oo adiga cirkiga dhulka inta ka dhaxayda ku socda waaye dhinaca badda koonfura intay u dhammaadeen dhinacaas mugay u dhammaanayeen maqribaaba galo saasaa salaada lagu dayay